golaha siyaasiyiinta Somaliland oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay fariin u direen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyahayaga Sucaad Cabdicasiis Daahir. waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro iyo haween. kulanka ayaa ku saabsanaa sida ay ugu xigeen golaha siyaasiyiinta Somaliland iyo shacabka kuraastan leh khilaafka xooggan ee ka taagan doorashada kuraasta gobolada waqooyi. dhammaan mas'uuliyiinta ka hadlay goobta ayaa sheegay in loo diiday in ay u madax banaanaadaan doorashada kuraasta baarlamaanka ee gobolada waqooyi. ugu horreyn waxaa hadal ka qaatay xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye isagoona faahfaahiyay ujeedka kulanka. rag ayaa doonaya doorashadan xornimadeeda inay soo galiyaan waxaan xaq ahayn oo meesha ku jirin. mudane Cabdi Xaashi iyo xildhibaanada iyo waxgaradka la socda iyo golaha musharaxiinta dhalinyarada ah ee doonaya inay kuraasta kula tartamaan xildhibaanadii hore u joogay waxay u taagan yihiin oo mar walba ka hadlaan in doorashadaasi xor iyo xalaal noqoto. intaas bay u taagan yihiin. taas baa markii 9 bilood soo taagay. marka sidii aynu marar badan oo kale halkan iyo meelo kale ugu kulannay oo aanu idinka akhbaar siinay waxyaalaha socda, maantana waxaanu go'aansanay inaanu dadkayagii ku soo noqonno oo uga waranno xaaladda taagan. marka ujeedada shirkani waa sidaas. xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in aan la xalin caqabadaha ka taagan kuraasta gobolada waqooyi, taasina suurtagal ahayn in doorasho xalaal ah ay ku dhacdo. maalintii ugu horeysay ay kulmaan Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaruhu ana la socday 3 qodob baa lagu heshiiyay. waliba ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri Cabdi Fataax waxaan watay daayirigana watay adaa buug weyn watay qorbigu waa kelmadiisi waa soo xiganaya. waxaa ka mid ahaa kow xubnaha uu siidka ku soo dari doono ee 3 ah in ay noqonayaan xubno madax bannaan oo aan kuwii hore ahayn. doorashada markay timaado waxaan qabaa anigu sidoo sheegay dr cilmi waxarta Soomaaliya waa laba qaybood isu timi. qayb dhan baan nahay lama oran karo qayb dhan ayaa loo talinaya aan ku lahayna ma garanaysaa wada hadallada iyo wada tashiga masiirka Soomaaliya doorashooyinkeeda meesha ku socdo in la yiraahdo qayb kuma leedahay wax qeyr dastuuriya sida la soo sheegay. Cabdi Xaashi waa odayga inoogu sareeyay ee la doortay ee Waqooyiga waa ahna ma garanaysaa 4 kursi ugu sareeyay dalka madaxda ka ah. runtiina nin la doortay unba ku matali karo ku hogaamin kareen nin la magacaabo kuma hogaamin karo. hanaankii doorasho xal loo weysay wasaaradda isweydiinaysa annagu halkan waxaan sameeyay guddigii aan xaq u leenahay guddiga nagala tasho. waxa la yiri guddigoo dhan inuu ahaa la kala tashan maayo tiraa la idinka siinaya oo tiraa la tiradaas sameeynaysa. waxaan ku doonaynaa tiradaas inay go'aaminta wax ka lahaato doorashada qabashadeeda go'aan ku lahaato madaxda guddiga ka mid noqoto hoggaanka guddiga noqon karto doorashada maamuli karto. markaas haddana waxaa leeyahay guddigiinaasi xubnihiinaasi wax ma maamuli kartaan iska jooga meesha waa laydin maamulayaa. aanu dadkayagii ku soo noqonno oo uga waranno xaaladda taagan. marka ujeedada shirkani waa sidaas. haddaan wax idinka taataabto xaqdarrooyinka aan leeyahay way taagan yihiin waxaa ka mid ah ugu horreyn waxaa naloo diiday inaanu ka qayb galno gogosha looga tashanayo arrimaha doorashooyinka dalka ayaa naloo diiday. waa kow. waxaa naloo diido ilaa haddana la diidan yahay inaanu u madax bannaanaano doorashada oo madaxdayada iyo dadka reer waqooyiga ay doorashadooda ismaamulaan oo iyagu maamushaan ayaa la diidan yahay. ra'iisul wasaarahan ku soo gabagabaynaya markaas waxa weeye dad wada tashaanu nahay dad loo taliyo ma nihin. dad wada tashada ayaanu nahay dad loo taliyo ma nihin. annaka ayaa curadkii Soomaaliyeed ah meel Soomaali gobonimo calanka buluug ee
shanta geesle ka taagto Hargeysa ayay hayd abtigay Cabdilaahi Suldaan Timacade ayaa uga geeraaray halkaas gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyn soo xiray kulanka haddii ay dhacdo warkaas suuqa ku jiray cidi inay doorasho samaysato waa idinka kuwa doorashada xaqa u leh ee soo saaranaya xubnahooda baarlamaan kuwa soo saaranaya weey haddii kolka ay dhacdo arrintaas waxaan idin leeyahay u diyaar garooba inaydun doorasho samaysataan Ducaad Cabdicasiis Daahir telefishinka Somali Cable Muqdisho